maanta de waxaanu nimid inaan soo kormeerno soo aragno jidkan isku xira magaalada Muqdisho aan rajeynayno iyo Jowhar inuu isku xiri doono hadii Ilaahay raado bal sida uu u socdo iyo inaan soo ogaano xaaladda ayaan u imaanay meeshan waxa kale oo u imaanay inaan aan u soo jeedino walaalaha qadar dawladda qadar walaalaha nahay in aan uga mahad celino runtii marka koowaad mashaariicda faraha badan ee ay Soomaaliya ka fuliyaan oo isugu jira mashaariic dhinaca bani aadamka iyo mashaariic horumarin dhinaca horumarinta marka mashaariicdaas horumarinta ay ka shaqeeyaan way badan yihiin laakiin waxaan si gaar ah u soo qaadanayaa mashruucan aan maanta dul taaganahay oo ah dhisidda laamigan qiimaha badan isku xiraya Hirshabeelle iyo caasimadda isku xiraya ayagoon ognahay sida uu Abubakar sheegay dhinaca kalena Afgooye iyo Muqdisho inuu dhamaaday oo isku xiraya asagana state-ka oo maxaan ku dhahaa Koonfur Galbeed iyo caasimadda Muqdisho waxaan uga mahad celinayaa dawladda qadar dadaalkaas faraha badan ee ay ku bixiyeen Soomaaliya waxay maraysaa marxalad asaasi ah oo maxaan ku dhahaa muhiim ah ay maanta maraysaa kadib markii Soomaaliya ay ku guuleysatay in laga cafiyo deynta kadib markii ay ku guuleysatay in laga xoreeyo dhul aad u ballaaran khawaarijta kadib markii ay Soomaaliya ku biirtay majmuucada ama kooxda shacabka ama dawladaha East African Community Soomaaliya waxay diyaar u noqonaysaa marka in la maal gashado ayay diyaar u noqonaysaa marka mar haday sidaas tahay marka waxa laga maarmaana inaan diyaarino wixii shuruudo ah ama sahlaya maalgashiga annagu xaggayaga dawladdu waxaan diyaarinay shuruucdii tashjiicin lahayd soo jiidan lahayd dadka mustaqbalka ama investmentiga sameynaya laakiin waxyaabaha loo baahan yahay waxa kamid ah waxa loo yaqaano infrastructure-ka ama buna taxdiya oo ay ka yihiin dariiqyada jidadka oo la dhiso iyo daaqada ama korontada ayaa asaas u ah marka kani waa mid kamid ah waxyaabaha halbowlaha u ah horumarka iyo horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga ayaan maanta dul taaganahay waxaan rabaa inaan walaalaha qadar u sheego ama reer qadar shaqada aad qabateen waxay horumarisayba dhaqaalaha waxay horumarisay isu socodka dadka waxay horumarisay goboladan ku xiran caasimadda oo ah meesha noloshii ay taalo oo ay khudaartu ka imanayso noloshu ka imanayso inay si sahlan ay uga timaado oo dadka maxaan ku dhahaa saacado safar ku qaadan jiray hadda ay ku qaadato daqaayiq ama muddo kooban ay ku qaadanayso jidka hadda aan soo maraynay caasimadda ilaa Balcad